dhawaqa risaasta ama maqlayseen waxaa maanta la dilay gacan ku dhigle cabdinaasir kaasoo nin taliye ah ku dilay inta uusan dhimanayn 2020 wuxuuna qartay inuu dilay taliyahaasi. marka gacan ku dhiglaha cabdinaasir ayaa loo yaqaanaa, waana 29 sano jir, wuxuuna dilay taliyihiisa ururka waaxda 59aad ee ciidamada ninka la yiraahdo Dhame Maxamed Axmed Hurdaaye ayuu dilay kadib markii uu soo kala dhex galay muran ku saabsan lacago mushaar ah oo uu ka waayay laga waayay taliyaha, kaasoo asagu uu sheegtay inuu lahaa mushaarkii markuu ka waayena muran fara badan dhex galay oo ku dilay magaalada Muqdisho, isla meesha maanta lagu toogtay xerada General Gordon. marka waxaa la leeyahay wuxuu kaloo dhaawacay 2 qofood oo kaleeto ayuu ku dilay meesha uu dhaawacay, laakiin labadaas qof way nool yihiin. ehelada dadka ka dhashay taliyihii hore la dilay ayaa waxay go'aansadeen in loo toogto, waana lagu fuliyey. marka dilka gacan ku dhiglaha waxaa ka dhacay xerada General Gordon maanta ayaana lagu fuliyey. magaciisa oo la yiraahdo Cabdinaasir Sheekh Xasan Cumar Cabtoy ayaa loo yaqaanaa, wuxuuna ka dhacay iskool bulisiye, waxaana kasoo qayb galay saraakiisha maxkamadda iyo dadweyne aad u fara badan oo ay ku jiraan dadka ehelka la ahaa ee taliyihii la dilay. marka muddo fara badan ayuu halkaas maxkamadda lagu xukumay oo asaga ayaa ka hor qirtay, wuxuuna dhahay aniga inaan dib bixiyana diyaar aan ahay, haddii la dilayana diyaar ayaan u ahay oo muran kama qabo. marka wuuna qirtay inuu marxuumka uu dilay labadaas qofna inuu dhaawacay. marka wuxuu isku dayay, waa la weydiiyey marxuumkaas maxaa isku qabateen, wuxuu dhahay lacag mushaaran ku lahay ayaan ka waayay, marka sidaas ayaan ku dilay. qisaastiina way soo gabagowday, wuxuuna sheegay aabaha dhalay taliyaha la dilay sargaalkan la oran jiray Hurdaaye inuu soo dhaweynayo gacan qisaasta lagu fuliyey gacan ku dhiglihii dilay wiilkiisa, isaga oo ugu mahad celiyey maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo dowladda federaalk Soomaaliya sida ay wanaagsan ay u maamuleen. marka markii toogashadaas ay dhacday kadib waxaa ka daba hadlay oo idaacadda kasoo hadlay nin inay isku reer yihiin loo malaynayo oo xildhibaan ah oo la yiraahdo Maxamed Ibrahim Macalimo, kaasoo u shaqayn jiray BBC-da, haddana ah xildhibaan ka tirsan dowladda federaalk Soomaaliya. wuxuuna sheegay in ninkaas qisaastiisa ay si qaldan u dhacday iyadoo la geystay xero ciidan kadibna aan loo sheegin eheladii oo ka dhashay. marka wuxuu rabay in la soo socodsiiyo ehelada si ay meydka u qaataan. marka wuxuu dhahay maadaama ninkii maanta la toogtay waxaan rabnaa u dhahay meydkiisa in anaga aasan ay xaq u lahayd sida ehelada ninka laga dilay meesha xaadir u ahaayeen, anaga inaan xaadir ugu ahaano aan wiilkeena markii la dilo aan qaadanay ahayd. marka haddii taas ay dhici weyso dhahay waxaa waay ku takrifal awoodeed oo taas ayaan u aqoonsan doonaa, laakiin waxaan ka rabnaa dhahay dowladda federaalk Soomaaliya wiilkaas la toogtay maadaama qisaas sharci lagu fuliyey waxaa la rabaa dhahay in dadka loo wada sheego, haddaan loo sheegaynin wuxuu dhahay awood sheegasho ayaan u arkaynaa. waxaan ka rabnaa dowladda federaalk Soomaaliya iyo generaaladii howshaas fuliyey in ay farta naga soo saaraan ninkii la toogtay markaas la qisaasay oo asagoo hore u dilay taliya Hurdaaye. marka muran fara badan ayaa ka dhashay qaabka loo toogtay, inkastoo dadka ay si live markan ay sheeg u duubayeen oo xataa video laga duubay iyadoo la tooganayo. marka qaarna ma aysan dhici jirin dowladda federaalk Soomaaliya sawiraantiisa ayaa lasoo gudbin jiray dad fara badan oo ka tirsan ururka al-shabaab iyo dad kale lagu toogtay asgar hore u dilay dad shacab hore u dilay intaba waa la toogtay, laakiin ma aysan dhici jirin in video clip ah laga duubo. marka dadkii askartii risaas tiridayso anaga waxaan soo qaadanay bis risaastii codkeeda iyo wiilka sawiraantiisa, laakiin videoga haddaan soo qaadano waa wax calool xumo ah, wax oo hadda baraha bulshada in lagu sameeyo fiicanna ma aha. marka aad iyo aad ayay sheeg arrintaas dadka baraha bulshada macnaha ay uga naxeen, waxaana la leeyahay wax aad u wanaagsan ma aha. marka muranka ka dhashay ninkaas toogashadiisa ma diidana Ibrahim Macalimo, ma diidana in ninka la toogto, laakiin wuxuu rabay in meel dadka kuwada og yihiin iyo waqtiga la tooganayo in loo soo sheego. ciidamadana nooma soo sheegin oo dhahay iyo saraakiisha toogatay. waxaa kaloo wuxuu dhahay in nala soo socodsiiyo markii ninkaas la sameeyo dilkiisa inaan anaga meydka qaadanay xaq ayaan u leenahay maadaama qisaastii la rabay lagu fuliyey. marka qofkii qof dilo waa la dilaa, waa sharci, annafsu binafsi horaa loo dhahay. marka hadda Maxamed Ibrahim Macalimo aad ayuu xanaaqsan yahay, wuxuuna dhahay haddii aanan ninkaas nala siinin gacanta nagala siinin oo farta nagala saarin meydkiisa waxaan u arki doonaa ku tagrifal iyo awoodna loo sheegtay taasoon suuragal ahayn oo aan yeeli karin in lagula xadgudbo. marka dowladda federaalk Soomaaliya waxaa laga yaabaa inay taliyahaas ninkaas hore taliyaha u dilay inay duugeen oo intay markay toogteen ay qaadeen ay duugeen laga yaabaa. marka ehelkiisa ayaa muran ka keenay, ehelkaasna waxaa xildhibaan u ah Macalimo. marka dood fara badan ay halkaasi ka jirto. marka haddii aan ninkaas la toogtay sheeg qisaasta lagu fuliyey aan ka gudubno, waxaa la sheegayaa warar fara badan ayaa soo tarayo oo ku saabsan ururka al-shabaab
taasoo la leeyahay dagaalo culus ayaa ku socdo xaaladiina isbedel ayaa ka jiro oo maalmahan waxaa maalin ka dambeysa meel ayaa laga qabsanaya. saaka maanta wararkeen hore ay ku warinay in 19 qof laga dilo ururka al-shabaab deegaanka guraale oo u dhexeysa Basre iyo Balcad, taas oo laga guuleystay ururka al-shabaab. waxaa kaloo la soo sheegayaa in gobolada Baay iyo Boqol ayagana dagaalo ay ka dhaceen, luuq oo kaleeto Gedo in dagaal ka dhacay oo ayagana al-shabaabka fooda saareen iyo dowladda federaalka Soomaaliya iyo gobolka Gedo maamulkeeda. marka dagaaladii waa iska sii kordhayaan, waa sii socdaan. wararka soo baxay hadda waxay sheegayaan in howlgalladu ay cirka sii galayaan oo mar ka dambeyso. waxaa kaloo la sheegayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud inuu tegi doono jiidaha dagaalka, waxaana ugu horeeya deegaanka Cadale oo halkaas lagu diyaariyay ilaa 200 oo tiknika ah, kuwaasoo aad u diyaar garoobay guluf dagaaleed oo aad u sareeyaan ku qaadi doona ururka al-shabaab. waxaa la leeyahay maalmaha soo socda madaxweyne xasan sheekh maxamuud tuutaha isagoo xiran ayaa ishaga oo halkaas tegi doona, qalabaadkiisii uu xiran lahay askarta jaakadaha xabadda aan karin waxaasoo dhan loo diyaariyaa leeyahay, koofiyada aan xabadda karin oo amisomta iyo dadkan kale ay isticmaalaan waxaasoo dhan loo diyaariyey. madaxweynaha jidda hore dagaalka ayuu tegi doonaa. haddii madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo tago dagaalka qaybtiisa hore waxay noqon doontaa madaxweynihii ugu horreeyey ee tago jiidaha dagaalka. marka ma dhicin madaxweyne inuu jiidaha dagaalka tago. madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo hal mar ayuu booqday deegaanka Marko, halkaas marna isheeg waa xasuusanaa 2018 in ayada umaleynaa halkaas mar ayuu dagaalka tagay. waxaa la dhihi karaa marka waxaa waaye madaxweynihii ugu horreeyay jiidda dagaalka inta gala si toos u dagaalamo oo macnaha meel dagaal ka jiro tago wuxuu noqonayaa xasan sheekh maxamuud. horeyna umaysan dhicin madaxweyne iyadoo jiid dagaal lagu jiro in meesha tago. ra-iisul wasaare wuu tagay, xasan cali kheyrar ayaa 3 jeer 4 jeer tagay jiidaha dagaalka shabeellaha hoose iyo shabeellaha dhexeba. ra-isul wasaarihii hore Soomaaliya xasan cali kheyrar wuu tagay. wuxuu kaloo tagay meesha la yiraahdo Galmudug oo iyadana 2 bilood iyo 15 bir oo joogay, iyadoo halkaas dagaal iyo qashaad ay ka jireen oo ahlu sunna iyo dowladda federaalka Soomaaliya isku dhacsanaayeen. marka hadda waxaa la dhihi karaa waxay noqon kartaa waqti ugu horreeyay oo madaxweyne Soomaaliyeed oo dagaalka ka qayb qaato, afka horena jiidaha hore dagaalkana oo tago. marka waxaa soo tarayo dagaalada hadda beriyaan ururka al-shabaab lagula jiro guulo fara badan ay dowladda federaalka Soomaaliya gaaraysa. waxaan weli aan dhicin waaye guulo isdaba joog ah, awood ciidan oo tayo leh ayaa la soo bixin ciidamada dowladda Soomaaliya. maalmahana deegaanada shabeellaha hoose iyo shabeellaha dhexe iyo mudugba waxaa ka socda dagaal aad u culus, inkastoo weli la sheegay in dad fara badan oo dagaalka fashilinaya ay jiraan, laakiin taas inaysan u suurageli rabin oo ay suuragelina laga yaabaa maadaama ishaga dagaalada si toos ah loo geli doono. marka waxaa soo tarayo ayagana odayaasha iyo nabadoonada aad iyo aad u raadinayo in xal laga gaaro oo ururka al-shabaab heshiis lala galo, taasoo dowladda qatar ay gadaal ka riixayso. taasna inta badan ayadana waa fashilantay oo odayaashii ay ergada usoo dirtay ururka al-shabaab waa la xiray, qaarkood 3 ay ahaayeen, 3 xabsiga ayaa la dhigay, kuwo kalena inaysan isku soo haleyn doonin loo maleynaa. marka dowladda federaalka Soomaaliya ka go-an tahay haddii ay ku guuleysato ururka al-shabaab in meel walba ka saarto, meel walba ay awood uga sheegato. waxaa la dhihi karaa dowladda maxamed cabdullaahi farmaajo iyo xasan cali kheyrar waxaa ka shaqo badan dowladda maxaa la yiraahdaa Xamse Barre iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud. marka waa ogaan doonaa dadaalka hadda ay wadaan meesha ku dambeeyay guulaha ay gaaraan. dad fara badan oo waxaa dhihi doono dowladda maxamed cabdullaahi farmaajo ayuu micnaha ninkan kasoo horjeedaa oo waa necab yahay. ma aha taas, qof walba wuxuu qabtay in loo qeyro waayo. maxamed cabdullaahi farmaajo howlo kaloo qabtay, madaxweyne Soomaaliyeed ahay, arrimaha dibadda wax badan ka qabtay, Kenya iyo wadamo kaloo barashar saaray iyo Imaaraadka oo dhuunta u galay, howlo badan ciidamada ayuu dhisay. marka nin walba howshiisa uu leeyahay. marka ciidamada oo dhisay xasan maxamuud maanta uu ka faa'iideysanayaa, ayagana waa howlgeliyay. marka nin walba madaxweyne walba waxba soo qabtay guushiisa ayuuna leeyahay. waana ku mahadsantihiin aqaaray la socodkeena barnaamijkeenan. waxaan idinka codsanaa youtube-kana subscribe iyo like share inaan la wadaagtaan. tan iyo kulanteen dambe xiiso waxaan kaga tegnaa sidaas iyo nabadgelyo.